ciidamada ilaalaha xeebaha ay wadanka Greece ayaa dib ugu celiyay dalka Turkiga in ka badan 57 qof oo muhaajiriin ah kuwaas oo ay ku jiraan 17 caruur ah kuna sii jeeday xeebta jasiiradda Lesbos si ay u helaan maangeliyo. ciidamada xeebaha dalka Greece ayaa lagu eedeeyay in si aysan waafaqsaneyn axdiga maangeliyo doonka ula dhaqmeen muhaajiriinta ay dib ugu celiyeen wadanka Turkiga. doontan ayaa siday 57 qof muhaajiriin ah isla markaana ka soo shiraacatay magaalada Birmingham ee dalka Turkiga waxayna ku sii jeeday waqooyiga Lesbos kor inta aysan motorka doonta ka qaadanin. ciidamada Greece kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday howlgallo lagu hortagay qulqulka muhaajiriinta ku sii jeeda jasiiradaha dalka Greece. dowladda Greece ayaa sheegtay inay dib u celin doonto cid walba oo si sharci darro ah ku soo gasho gudaha dalka Greece ayadoo taasi cambaareen hay'adaha u dooda xuquuqda qaxootiga. 57 qof oo muhaajiriinta ayaa ka soo jeeda wadanka Afghanistan oo ay ku jiraan 27 caruur ah waxaana dib u celintooda amray ayaa la leeyahay mas'uuliyiinta Greece ayagoo u diiday xuquuqda maangeliyada. dhawaan dowladda Greece ayaa ilaamisay in ay qaxootiga kaliya ay siinayaan maangeliyada ay yihiin dadka ka soo jeeda wadanka Ukraine kuwaas oo naftooda ugu soo baxsanaya duulaanka Ruushka ku qaaday wadankooda. dadka muhaajiriinta ayaa inta badan dhibaatooyin badan kala kulma inta ay ku jiraan safarkooda kuwaas oo inta badan ku waaya naftooda maadaama ciidamada xeebaha dalka Greece aysan ula dhaqmin si wanaagsan.